شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا قاوطي waxay ka soo baxday gurigeeda waxay u sii socotaa masaajidka si cishaa'iga u soo tukato Abu Hurayra ka yimid markaasuu udugeedii dareemay xageed u socotaa buu dhahayaa amma qalla adoontii Allah meel kalaaba uma soconin arooskii meel lagu tumanay uma soconin beydka Allah u socotay ilaahay gurigiisay u socotaa bal inay Ilaah subhanahu wa ta'ala soo caabudo ay salaad u soo tukato laakiin ciibteeda aqri barfuun bay soo marsatay عطركي أي مرستي بابوي دندي أها مركاسو أبا هريرة وحوكيري دقيسو نقو وقرقاقا النقو وحا أقوبيس التاسيل جنابة الله قوبيس تأوكالي ويا النبي محمد أيام مغلي ودهايا قبر كستا إبنانك أصوب بحضا أيضا عطريسا وأدقيس وزانيت ساسا مغلي بحن قبو بهي وقرقاقا الله ما أنتو حد مغليسا محاد أصوب مرستي وعطركي دمركا wax cabdar dumar la yiraahdaa ma jiro wax ayagu loogu talagalo qaasoo banaanka loogu soo baxaana malaha waxaad maqlaysaa waa surwaalkii dumarka waa cabdarkii dumarka waa barfuunkii dumarka waa wixii dumarka wax noocaas oo ilaahay xaaraantinimeeyay oo banaanka loogu soo baxaa ma jiro dumarku waa loo ogolyahay inay uduga marsadaan ama ay carfsadaan ama ay uunsi shitaan laakiin waa mar allaala markay aqaladooda iyo guryahoodu ay joogaan maanta markii arooska aadayaan catara loogu talagalay mar allaala markii magaalada la aadayo catar gooniya loogu talagalay mar allaala marka madrasada la aadayo catar gooniya loogu talagalay kulli waa wax mamnuuca gabar kasto iscatarisa oo banaanka u soo baxdana rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku tilmaamay qofaan qiimo lahayn faa'iidana lahayn mar allaala marka banaanka u baxaysaan udugii catarka iska dhaafa gabar kasto gurigeeda fadhisa wax dhibaato kuma sugna mana loo diidana sidaa darteed ayaa ilaahay in badan wuxuu amaana dumarka guryahooda fadhiya mar allaala marka ay baxayaan catarka iska daaya xijaabkana marka qaata waayo gabar waxay ku qiimay wanaag badan tahay inay gurigeeda joogto sidaa darteed baa rasuulku gabar u timid oo tiriyaa rasuulallah masaajidkaaga raba inaan ku soo tukado oo salaad aan kula tukadaan jeclahay iska imo ee ku tukadu yiri laakiin gurigaaga kaaga fadli badnaa gurigaaga inaad joogtaa kaaga sii fadli badneed xataa gabdhaha maanta masaajidada aadaya dhibaato fara badan bay keenaan mashaakil badan bay tahay marnaba kama aamin noqonaya fitno iyo dhibaato gabarna waxay ku asturantahay ku qiimo badan tahay intii guriga fadhiso gabdhaha ahlu jannaadka ah wuxuu ilaahay ku amaanay banaan bixid la'aan wuxuu ku amaanay guri fadhin wuxuu ku amaanay gabdho wareega inaysan ahayn xuurun maqsuuraatun fil qiyaam waa gabdho cad ahoo lagu xabisay oo lagu fadhiisiyey oo aan ka bixin qiyaamka waa qolka fadhiga ee daaqilka ah ayuu ilaahay ku amaanay gabdhaha ahlu jannaadka ah gabdho aan wareegaynin kuwan waxay ku ibtireeyeen wareeg haba baxaane wax dan hadii loo bixi lahaa way fiicnaan lahayd dan la'aan xataa haba baxaane hadii xijaab qaadan lahayd way fiicnaan lahayd masaajidkii laguma badbaadin maanta suuqii waa ka sii darnaadayba goobihii fisqiga iskaba sii daa meesha shayaadiintu joogto saadarteed bay Caaisha markay nooleed waxay tiri hadduu nabi Muhammad ogaan lahaa waxyaabaha ay dumarka keeneen oo ay soo cusboonaysiiyeen dumarka masaajidada wuu ka reebi lahaa nabiga waa u diidi lahaa naagaha inay masaajidada yimaadaan hadduu ogaan lahaa waxay maanta keeneen laakiin looma diidi karo sunnada waxay ku dararsantuu nabigu ku dhintay inuu amray inay